sheekooyinka nebiyada oo Ilaahay soo diray naxariis nabadgelyo korkooda ha ahaatee waxa inoogu sugan wax ku qaadasho iyo ku dayasho wanaagsan wadadkii ugu fadliga badnaa intii uu Alle subxaanahu wa ta'aala abuuray kuwii uu doortay in ay noqdaan kuwa ka sharaf iyo karaamo badan aadamaha intooda kale xambaarana fariinta Alle subxaanahu wa ta'aala ee uu u soo diray aadanaha. haddaba barnaamijkeena bisha Ramadaan ayaynu ku daafuri doonaa sheekada Nebi Aadam inagoo isla eegi doona qaabkii loo abuuray aadamaha iyo sidoo kale noloshii dheerayd ee Nebi Aadam ee ku dhoweyd 1000 sano. waxaad daawanaysaan barnaamijka Dhambaal qaybtiisii labaad. waxaa idiin soo tebinaya aniga oo ah Cabdiraxmaan Cumar, halka aad ka daawanaysaanna oo waa Bari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna caawa. ka sheekaynta qisada Nebi Aadam calayhi salaam waa ka sheekaynta bilowga taariikhda insaanka, waa aabbaha dadka iyo sidoo kale qofkii ugu horeeyey ee uu Alle u doortay inuu noqdo halka ay ka bilaabmayso tafiirta aadanaha durriyadiisii. wuxuu Alle subxaanahu wa ta'aala ka fadilay noolaha kale oo dhan. Alle weyne markii uu doonay inuu abuuro Aadam waxa uu malaa'igta u sheegay doonistiisa ah inuu dhulka u yeelo khaliif iyo kuwo dhaxla. malaa'igta ayaa rabbigooda ku yidhi, rabbiyow ma waxaad ka yeelaysaa dhulka dhexdiisa kuwa fasahaadiya oo dhiigga daadiya? malaa'igta oo hadalkooda sii wata ayaana ku yidhi Alle subxaanahu wa ta'aala, annagu waanu ku tasbiixsannaa kuna caabudnaa. Alle subxaanahu wa ta'aala ayaa u sheegay malaa'igtiisa inuu og yahay waxaysan ogayn. Alle ayaa amray mid ka mid ah malaa'igta inuu dhulka u dego kana soo qaado ciiddaasi oo ka kooban noocyo kala duwan iyo midabo kala duwan. intaa kadibna waxaa lagu daray ciiddii biyo, wuxuuna noqday dhoobo. sidaasi ayuuna ahaa muddo uu Alle og yahay tirsigeeda. rasuulka sallallahu calayhi wasallam xadiis uu Abi Muuse ka soo wariyey ayuu micnihiisu ahaa, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Aadam wuxuu ka abuuray qabasho ama cantoobo uu ka soo qabtay dhulka oo dhan. markaasay carruurtii Aadan noocyadii dhulka u ekaadeen. waxaa ka yimid kii caddaa iyo kii casaa, kii madooba iyo kii intaa u dhexeeyey, kii xumaa iyo kii fiicnaa, kii fududaa ama furfurnaa iyo kii adkaa ama qallafsanaa. muddo kadibna wuxuu Alle subxaanahu wa ta'aala qadaray inuu ruuxda ku afuufo Nebi Aadam. waxay naftu ka gashay madaxa iyada oo ay ruuxdu hoos u socoto. markii ay ruuxdii maraysay sanka ayuu Aadam hindhisay. malaa'igta oo agtiisa joogayna waxay ku dhaheen Aadam, Alle u mahadceli. wuxuuna yidhi Aadam, Alle ayaa mahad iska leh. Ilaahayna waxa uu ku yidhi, eebbaha ha kuu naxariisto. ruuxdii marka ay sii gaartay caloosha isla markiiba waxa uu Aadam doonay in uu qabsado oo uu soo goosto midhaha jannada iyada oo aysan weli gaarin ruuxdii jirkiisa oo dhan. sidaasi awgeed ayuu Ilaahay u leeyahay dadka waxaa laga abuuray degdeg. markii Nebi Aadam calayhi salaam ruuxdii gaartay jirkiisa oo dhan wuxuu Eebbe amray inuu u tago malaa'igta oo uu salaamo. wuxuuna Nebi Aadam ku yidhi malaa'igtii, assalaamu calaykum. malaa'igtiina waa ay ka qaadeen salaantii waxayna ugu jawaabeen wacalayka assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxa uu Eebbe ku yidhi Nebi Aadam, taasi waa salaanta adiga iyo ubadkaaga, sida ku soo aroortay aayadda 17 ee suuradda 37 ee qur-aanka kariimka ah. Alle subxaanahu wa ta'aala ayaa malaa'igta u sheegay inuu doonay inuu abuuro bashar, midkaasi oo uu ka abuuray dhoobo. malaa'igtiina waxa uu faray marka uu nafta geliyo basharkan uu abuuray in ay u sujuudaan. kadib malaa'igtii dhammaantood waxay u sujuudeen Nebi Aadam marka laga reebo Ibliis oo isagu aan malak ahayn laakiin ahaa jin Eebbe sariisiiyey, sharafna u yeelay. Ibliis ma sujuudin. Alle subxaanahu wa ta'aala ayaa wuxuu weydiiyey Ibliis waxa uu u sujuudi waayey. Ibliis lacnadi korkiisa ha ahaatee waxa uu ku jawaabay jawaab aad u xaqiran. waxa uuna yidhi, ma waxaan u sujuudaa noole aad Allow ka samaysay dhoobo? aniga ayaa ka khayr badan oo waxaad iga samaysay naarta. Ibliis wuu kibray islana weynaaday, wuxuuna galay dembigii ugu horeeyey ee lagu sameeyo samada ee lagu caasiyo amarka Alle subxaanahu wa ta'aala.
alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u jawaabay ibliis wuxuuna ku yidhi ka bax iyada oo uu ula jeeday alle subxaanahu wa tacaala samada waxaad tahay dayro waxaana dushaada ahaatay lacnad iyo cadhadii alleh naxariista ilaahayna agtaada way ka fog tahay ilaa iyo maalinta qiyaamaha alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ibliis ka eriyey samada iyo naxariistiisii kadib markii uu alle fogeeyey ibliis ma uusan dalbanin cafis iyo naxariis ma uusan toobadkenin ee waxaa la sii weynaatay xumaantii iyo xasadkii naftiisa ka buuxay waxa uu yidhi allow waxaad inoolaysaa ilaa inta uu qiyaamuhu ka dhacayo alle subxaanahu wa tacaala waa ka aqbalay weydiintii ibliis waxa uuna ku yidhi adigu waxaad ka mid tahay kuwa dib loo dhigay macnaha ilaa qiyaamaha waad noolaanaysaa ibliisna waxa uu markaasi ballan qaaday inuu lumiyo awlaadda aadam ilaa qiyaamaha laga gaarayo oo ay dhammaanayso nolosha dunidu alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ballan ku qaaday in ibliis iyo ciddii raacdaba uu cadaabta ka buuxin doono kuwa toobadkeenka la yimaadana oo rabbigooda xaggiisa u soo laabtana loo dembi dhaafi doono nebi aadam naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee wuxuu ilaahay dejiyey jannada waxa uu cunay midhaheedii waxa uu cabbayey biyaheedii sida ku soo aroortay aayadda 118 ee suuradda daaha alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi jannada dhexdeeda kuma gaajoonaysid kuma baahanaysid kumana dharla'aan doontid si rabbi ugu siyaadiyo nimcada alle ayaa qadaray inuu aadam calayhi salaam u abuuro lamaane wehelisa nimcada rabbina la qaybsata aadam calayhi salaam oo hurda ayuu feertiisa bidix eebbe ka abuuray xaawa oo ah hooyada basharka markii uu soo toosay ayuu hareertiisa ku arkay wuxuuna weydiiyey qofka ay tahay waxayna ku tiri waa ruux dumar ah oo waxay abuuray ilaahay si aan kula noolaado oo aan nolosha kula qaybsado alle subxaanahu wa tacaala ayaa deegaan uga dhigay jannada uduga leh waxa uuna ku yidhi sidaad doontaan ugu noolaada kuna raaxaysta nimcadeeda balse waxaa laga reebay hal geed oo ka mida geedaha jannada inaysan cunin sidoo kale waxaa la faray inay iska ilaaliyaan ibliis oo cadow u ah halkaasi ayayna muddo baraare ugu noolaayeen ibliis ayaa u qalab qaatay sidii qorshihiisa ugu horeeyey ee hagardaamada ah uu ugu samayn lahaa aadam iyo xaawa waxa uu aadam u sheegay inuu cuno geedkii laga reebay si uu u noqdo meleg kuma uusan dhihin caasi ilaahay ee si xeeladaysan ayuu ugu yidhi ilaahay waxa uu idinkaga mamnuucay geedkan si aydan u noqon malaa'ig waxaad cuntaan oo keliya geedkan haddii aad samaysaanna weligiin ma dhimanaysaan jannadana waad ku waaraysaan nebi aadam ma rumaysan ibliis waxa uuna xasuusnaa cadaawaddiisii laakiin ibliis waxa uu mar kale adeegsaday qaab kale oo ah inuu u dhaarto kuna dhaarto magaca ilaahay ibliis wuxuu u guda galay inuu dhaarto wuxuuna ku yidhi nebi aadam ilaaha weyn ayaan ku dhaartaye waan idiin nasteexaynayaa isla markaasba nebi aadam uu rumaystay ibliis waxayna cuneen geedkii laga mamnuucay inay u dhowaadaan oo ay cunaan nebi aadam isma lahayn noole uu ilaahay abuuray ayaa magaca alle ugu dhaaranaya been wuxuu ilaaway ballantii isaga iyo rabbigiisa u dhexaysay wuxuuna rumaystay cadowgiisii ibliis markii ay dhedhamiyeen ayaa waxa u muuqatay cawradoodii wayna kala yaaceen waxayna isku dabooleen caleentii dhirta jannada alle subxaanahu wa tacaala waxa uu la hadlay nebi aadam iyo xaawa waxa uuna ku yidhi miyaanan idinka reebin geedkan oo aanan idinkaga digin shayddaanka oo aanan idin dhihin ibliis waa idiin cadow nebi aadam iyo xaawaba way ka shallaayeen dembiga ay galeen waxayna baryeen rabbigood inuu u dembi dhaafo alle subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalay ducadoodii uuna u dembi dhaafay laakiin waxa uu qadaray in aadam iyo xaawa ay ka baxaan jannada una degtaan dhulka halkaasina ay ku noolaadaan nolol ay la socoto xisaab la dagaalanka nafta iyo shayddaanka waxay sidoo kale sidaasi ku waayeen nimcadii jannada oo ahayd meel aan lahayn gaajo iyo oon daal iyo caajis dhaxan iyo kulayl xanuun iyo murugo toona waxaana la keenay duni intaasi iyo ka sii badanba ku sifaysan alle subxaanahu wa tacaala waxa uu aadam ku karaameeyey inuu noqdo nebigii ugu horeeyey si uu awlaaddiisa u faro caabudidda alle oo keliya iyo la dagaalanka nafta iyo shayddaanka alle waxa uu qadaray inay u baddhalaan kuwaasi oo noqon doona kuwii degi lahaa acmiri lahaana dhulka sida uu qoray ibnu kathiir aadam iyo xaawa waxay isku dhaleen 40 carruur ah 20 wiil iyo 20 gabdhood oo mataano ah wiil iyo gabarba isku mataano ayay ahaayeen ismana guursan karin labada mataanaha ah wiilku wuxuu guursanayaa gabar da'da ku xigta ah oo aan ku mataano ahayn xikmadda ilaahay ayaana ahayd in faraca aadam ay bataan
waxaa dhacday inuu khilaaf dhex maro laba ka mida wiilashii nebi aadam oo lagu kala magacaabi jiray qaabiil iyo haabiil. qaabiil ayaa diiday in gabadha walaashiis ee mataanta ah loo guuriyo haabiil maadaama mataantiisu ka qurux badnayd gabadha la dhalatay. si loo kala saaro aabbahood ayaa ku amray inay sameeyaan qurbaan. qaabiil waxa uu lahaa beer halka haabiil uu lahaa xoolo. waxa uu qaabiil soo qaaday dalagii ka soo go'ay beerta, haabiilna waxa uu soo qaaday wan weyn oo cayilan. waxayna dhigeen qurbaankii buur dusheeda. kii alle ka aqbalo qurbaankiisa waxaa qaadaysa qurbaankiisa iftiin iyo nuur xagga sare ka imaanaya. wuxuuna ilaahay ka aqbalay haabiil. kadib markii qaabiil arkay in haabiil laga aqbalay ayaa wuxuu qaaday caro iyo xaasidnimo. caradii waxa ay ku kaliftay in qaabiil ugu hanjabo haabiil inuu dilayo, waxaana dembiga ku riixayay ibliis oo been iyo khiyaano u dhigay. ugu dambayntii qaabiil waxa uu dilay walaalkii haabiil, waxaana taariikhda lagu wariyaa inuu soo qaaday dhagax weyn kadibna haabiil oo hurda madaxa kaga dhuftay. sidaasi ayuuna ku dilay. dhacdadan ayaa noqotay fasahaadkii ugu horeeyey ee ka dhaca dhulka korkiisa. haabiilna waxa uu noqday qofkii ugu horeeyey ee si dulmi ah loogu dilo dhulka. qaabiil waxa uu dhabarka ku qaatay meydkii walaalkii, mana garanayn sida loo xabaalo noolaha. waxa uu dhabarka ku sitay muddo badan. maalintii dambe eebbe waxa uu u soo diray tuke. tukahaasi oo qoday dhulka si uu u tuso sida loo aaso qofka meydka ah. sidaasi ayuuna u raacay tilmaamtii tukaha una duugay walaalkii gacantiisa ku baxay. maadaama uu qaabiil ahaa qofkii ugu horeeyey ee dilka bilaabay, waxa uu qayb ku leeyahay dhammaan dilalka adduunka ka dhaca ilaa laga gaarayo maalinta qiyaame. nebi aadam wuxuu gaaray cimri aad u dheer. sheekh aldabari sida uu ku qoray buuggiisa taariikhda ummadaha, nebi aadam wuxuu noolaa cimri gaaraya 1000 sano, halka kutubta qaarna ay dhigayaan in nebi aadam uu noolaa 930 sano. markii uu dhintay nebi aadam waxaa timid malaa'ig si ay u tusto ubadka nebi aadam qaabka loo dhaqo meydka loona kafno kadibna loo aaso. waxayna ku dhaheen ubadkii aadam waa taas sunnadiinnii ee taas ku dhaqma. sannad kadibna waxaa dhimatay xaaskiisii xaawa. halka ay ku duugan yihiin doodo kala duwan ayaa laga soo wariyey culimmada taariikhda. xaqiiqda iyo ogaanta saxda ahna alle ayaa garanaya. nebi aadam wuxuu baray ubadkiisii inay ilaahay keligii caabudaan oo iska ilaaliyaan ibliis iyo shayddaanba, kuna tusaale qaataan aabbahood iyo hooyadood sida uu uga soo saaray jannadii. dardaarankiisiina ilaa ay dunidu ka dhammaanayso waa uu sii jirayaa.